bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijka beeraha iyo xoolaha aalaaba xiliyadan oo kale aad ka daawataan TV-ga dowlad goboleedka Hirshabelle barnaamijka maanta waxaa marti iigu ah qabiir dhanka beeraha ah oo lagu magacaabo Salim Axmed Salim kusoo dhawaad barnaamijka aad mahadsantahay telefishinka Hirshabelle iyo Abdiftaah Nursine Uriyaha aad mahadsantiin waxa aad idinka mahad celinaa markasta oo macnaha beeraha dhankooda ama tacabka ama wixii nolol maalmeedka Hirshabelle ee dhaqmis wali wixii ku xoogan caasimada wax la iga weydiinaa aad mahadsantiin soo dhawaada waatay Salim waxaan wax ka weydiinaa xilligan waxa lagu jiraa xilligii deyrta sida aan wada ognahay beeralayda magaalada Jowhar xilli waliba wax bay dhigaan oo dalag u gooni ah jiro xilligan maxaa u diyaar garoodeen inaad tacabtaan hadaatiin beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Jowhar aad mahadsantahay waa su'aal wanaagsan xilligan waxa lagu jiraa xilligii deyrta sida hadda ay u yaqaanaan dadka beeralayda Jowhar tacabka waxa la yiraahdaa go'i deer go'i waa ka soo baxnay hadda waxaan taaganahay xilli deer ah deertana waa isku diyaar gareynayna waxaan isku diyaar gareynaynaa xilligaas iyo tacabkeeda iyo wixii la tacabo tacabkaas oo ah sida sisinto kaleento yaanyado kaleento qaraho kaleento tacabkaas hadda la diyaarina wali ma la howlgelin laakiin beeri wuxuu ku jiraa aragidi iyo beer la biinay oo dhaay laga dhigayo sax marka maxaa diiday hadda waxa tiri xilliga hadda laga soo gudbay waxa la beeray galeydi iyo dalagyo kale sidaas oo kale xilliga deyrta galeydi iyo ma la beeri karo sisintana ma la beeri karo xilliga hadda aan ka soo gudubno guug iyo ma la beeri karo maxaa dhaxay wal sameyn kara laakiin waxay u baahan tahay dadaal far badan oo u baahan tahay oo dhulkan waa dhul carramadu wax kasta way qabanayaan laakiin si labadaas xilli wax loo kala dalbada waxay tahay xilligaas gu'a waxa waaye roobkina waa aaran wabigina waa barwaaqo oo taagan yahay xilligan hadda deerteena sidoo kale wiigi waa taagan yahay laakiin roobka wax laga yaabaa in uu waxna mid noqdo goosgoos ah oo galeydina waxay u baahan tahay markii la waraabiyo oo hoos laga waraabiyo roob inuu kor uga dii karo hadaysan imaan xuquuqda in la daaweeyo oo laga dawareegto shaqo badan u baahan tahay maadaama shaqada badan loo baahnaa xilligaas waxay ku habboonaatay marka yaanyadii iyo sisintii oo u baahan xagaagii ku daan wax u noqonay daawo iyo horumar u noqonay qurux oo booska galeydin looga maarmo oo marihii inta laga helayna booska kale inta laga helaysa hadda marka loo sameeyo labada xilli waatay sisinta waxa soo hadal qaaday in xilligan la beero dalagga sisinta marka la beerayo qaab noocee ayaa loo beeraa aad mahadsantahay taas waxa waaye sisinta marka waxa la sameeynaa beeraha la carigidina marka beeraha la carigidiyo kadib ayaa la biyina wala sifada hore hadda ka hadlaa waxay tahay markii la carigidiyo la biyo beeraas waxay noqonayaan beera dhaay oo sida biyaha dadka u yaqaan fatahaadda kala soo baxdo kaleento metalkeeda la sameeynaa beerihi nadiif oo biyo ugu aysan galin inta la carigidiyo markii la carigidiyo la biyina marka la biyay kadib biyaas ay ka baxaano laba shay saddex shay afar shay loo isticmaalaa nin kasta dhanka hore u jeesana ninkii si raba sisin ku falana beertii qurxan oo carigidsan oo biyo ka baxdo sisin mar labaad ku falaa ninkii raba yaayo iyadaas oo inta yaanya abuur ku shubo ama yaanya talaal meel ku diyaarsado oo hadana markii biyaha si bixir baan inta talaalo oo hadana falaa oo caadi gacanta ku falana markaas ninkii raba qaran sidoo kale markii biyaha ka dhamaadaan hadana qarina abuur oo hadana qarihi inta falo oo abuura oo inuu abuuro kadib falaa marka waxa ay leedahay saddexdaas dalag marka la diyaarinayo oo la rabo in la beero waxa loo maraa hab isku nooc ah miya hal nooc loo maraa oo in beerta marka hore la falo la biyeeyo biyaas markii ka baxaano dalagga lagu rido ha iyadoo beerti ku qoyn kuna argisan oo nadiifsan si fiican falka dambe iyo shaqadii dambe marka waxay noqon kartaa ninkii sisin rabana makiin labaad adeegsana marka yaanya noqotane talaala u shuban hadoo talaal u shubnayna yaanyadu abuura loo niido abuura beerti waa marba biisinta aan argisantaa markii qarar rabana sidii kale hadana marka labadan shay dambe qara yaanyadu waxay noqonayaan beertii argisan oo qoyan in la abuuro ama in qara in la abuuro yaanyadu waxay noqonaysaa iyadoo talaale ama iyadoo loon la abuuro asaas laga yina laakiin sisin ninkii rabo mar labaad inuu falo sisin ku falay noqonaysaa argidi oo dhaay gidi saasa loo diyaariyaa marka sisinta xilli ilaa inta ay ku baxdaa sisinta la hadba si ugu muhiimsan hadda tacabka Jowhar anaga lagu soo barbaarshay waa iyada 3 bilood iyo inta u dhaxayso intaas waa 9 inta u dhaxayso hadda ilaa intaas adiga sisinta hadda soo go'da macal shabitaanka macal kulligeed ay soo xaroonay magaalada soo galay iyadoo diyaarsan oo laga suuq la geysan karo ama guri la dhigi karo si fiican marka iyada waxay uma baahna maahano marba hadii in la falo oo sisintii lagu shubo ay soo dhalato ilaa iyo beertii goosmo ay ka gaarto uma baahna waxyaabo kale oo shaqo iyo
uma baahna Soomaa haddii aysan cudur jirin oo sida hadaan ku sheegay roobka goosgoos noqonayo deertii waxa marka u baahan tahay roob laba jeer ku daawo lama baahna haddii xagaagaas oo xoogaa goosgoos ama roobka simaanay oo soo kala daadaan wuxuu u baahanaysaa buufis wax la yiraahdo daawo oo iyada markaas ama qurxiso ama cayaanka ka dilaa cayaana ka dhashta haddii cayaankaas ka dhan xagaagaas uu ku badbato ku soo ceshoman waxay noqonaysaa mid sintii oo dhaayga lagu falay ay ka barwaaqo badan tahay idoon la daaweynin la buufin ay ka caafimaad badan tahay xagaagaas ku soo noqdo roobka ku soo noqdo marka waxa soo hadal qaaday in dalaga xilli ay sida markii roobka kale roob badan ay ku da'aan oo kale inay ka dhashtaan cayayaan aad mase waxay ka dhashtaan markuu roobka uu yar yahay cayayaankaas roobka markuu yar yahay maxaa yeelay geedkan la abuur waa geed cagaaran oo qurux badan geedkaas cagaaran haddii ay dhulkii oo shaqada laga qabanayna dhul liishiisan oo nadiifsan oo mar hore la hagaajiyo uu yahay oo san coos lahayn waxay u qasbantaa geedka cagaarna inuu cayayaanka raadiyo kadibna waxa laga yaabaa inuu caleenta ka dilo inuu mirihi cuno oo daba socdo qoyaanu ka raadina markii roob yimaado wuxuu qasbanaana markii inuu ka dhaqmo oo ka daato oo dhulkiin cagaar oo ka helo marka waa tahay Zalim cayayaankaas ka dhashto qabiir dhinaca beerahan waa tahay ma jirtaa dhaqaatiir ama dad ku takhasusay dalagaas ku dhaco sisinta daawada lagu buufiyo dhakhtarniga la taliya ma jiraa aad waa jiraan dhakhtar badan jira laakiin dadka hadda ayaga badanaa sida dhakhtarka waa laga soo faa'iidaa waxay Soomaali tiraahdaa ka barta ka badi dhakhtar hadda dad jooga oo dhahay mana san halay lama jiro laakiin dhaqaatiirtii waxay gelintii idaacadaha telefishinada sida telefishinka hor taagan oo kaleento markii meelahaas ka soo wax gilaan ay qofkii wuxuu ka qaadanaa asoo beerli ay shaqadiisa wato cudurka shalay saameeyay oo culidiisa laga sheekayna meeshka dhaxarka meeshuu fikirka qaadanaa daawooyinkii wix loo tilmaamo raadinaa wuxuu sameeynaa marka nin asaga dhakhtarkii ka qaatay tababar iyo khibrad oo markii hawshiisa si fuliyo noqonaa laakiin dhakhtar markaas joogo oo daba socod sida la yeelahay ma jiro waana suuina insha Allah duleeyra waxa leedahay dhakhtar hadda aan tagayno oo dhanka beeraha ku takhasusay oo nagala talinaya ma jiro dhakhtar hadda joogo oo nagala tashanaya ma jiro laakiin waxay gelintaasan ka helnaa telefishinada ka helnaa macnaha idinko takhasus badan ku qaadateen inta aad dalagan beereyseen aqoon badan aad ka qaadateen si fiican iyo daawooyinka loogu talagalay intaas ay ka kaashatan intaas la kaashtaa aad waa tahay qaraha qaab noocay asigana loo beeraa aad qaraasana waxa waaye sida hadda kale inta waayo laakiin shaqada wali socoto beeri markii la falo oo la caragidiyo oo asan la qooyo beertii salax oo nadiifsan asoolun la abuura qaraha waa sida miraha dadka reer oo yaqaanana ama inta fiirsan karto beerli oo tacbanaysa telefishinka inta waxay gelinta dadka socota ee dhaq xilliga tacabka deerta qaraha waa beertii oo qoyan asan sida miriyo luno kale loo abuura lunkaas soo dhashanayo markuu soo dhashto asana waa la falaa oo falkiisa ma aha mid macna sida sinto kale in la caragidiyo laga tagay ma aha oo la daba taagnaana kan wuxuu qasbaa in la daba taagnaado loo caro tuuro la daba joogo falka silkiis loo waxay mar walba rees iyo qoyaan oo lahaado dhadada habeenku soo dhacay si loogu celiyo hadii xoogaa culays ban la dareemo mar rabo biyo farta loo soo diyo lagu raabina ma u baahna hadii ugu badnaato farta diriskeeda beerta biyaanta lagu soo diyo laga soo dhunsanaa koombo lagu raabina gacan shub lagu shubaa hadii kalena roobada uu iskiga daan asaga barwaaqo iska noqon asaga oo falkiisaas iyo xagaagaas qoyaankaas doo helanay asana ma u baahna waa ku filan tahay cayaanka laga soo sidoo kale inta oo sidoo dadka soo sheegnay hadii dhulkiisa uu nadiif yahay oo soo xilin sidoo kale asana buufso u baahan yahay sax marka qarahaas sigana ilaa iyo xilli intuu ku baxa qarahaasna waa hadda sidoo kale waa adiga 9 cisho waa tacabka hadda ugu badan oo galeyda sisinta qaraha waa 9 cisho gudaheeda wax 9 cisho ka baxsan waxa ka jira bariiska hadda joor laga isticmaalo laga tacbo 9 cisho qudaarta kale oo yararka ka sii hooseysana waa ka yartaa oo ansalaatada koosta karta 4 cisho 5 cisho 6 cisho wala sisinta qaraha galeyda sidii macnaha waxyaabaha saas oo kale oo hadda dalaga oo macnaha cuntada waaweynka oo bariiska aan ku jirin waa 9 cisho gudaheeda dalagaas ma jira meel aad u iib geysaan suuq macnaha suuqa u iib geysaan ma jira aad suuqa joor hadda ku yaala caasimada maamulka gobolka Hirshabelle waxa aad uga socdo qudaarta qaraha iyo yaanyada hadii ay dhacdo in fasalkaas joor oo tacabkaas ka bato xilligaas deerta qarihi yaanyadii ay ka badatana waxa hadda loo qaadaa xamar oo waxa qaadaan baawur joor ka tirsan oo caasimada joogto ka shaqeyso oo qaad xamar oo habeenkii baxdo oo subaxii baxdo noocay doonta noqdo qaraha noqdo yaanya noqdo sisi ha noqoto baawurta habeenkii baxayaan la qudaarta fudud habeenkii subaxii baxaan xamar loo iibgeeyaa hadii joor ay rarka ka bato culayska ka bato barwaaqada ilaahay noo badiyo xamar loo iibgeeyaa idinka gacan siisa ma jirtaa hawshiinaas beerista dalagyada kala duwan haday noqon lahayd hay'ado oo ku shaqo leh hadii ay noqon lahaayeen maamulka jiro ama dawladda dhexe
cid idinka gacan siiso ma jirtaa aad marka hore waxay kasoo bilaabanaysaa iskaashato beeraleyda jiraan oo beeraha ka shaqeeyaan oo odayaasha beledka taas aad aan u mahadcelinaa Ilaahay mahad iskale awalan marka odayaashaas hadana waa dadka anaga soo barbaariyay ee tababarkii beeraha nagu soo siiyay maadaama aqoonta ay anagu soo shaqeynay nagu si fiicnayeen waxay ayagana isku arurseen in ay noqdaan urur isla jiro oo iskaashato beeraley kuwaas oo marka hore ayaga dadkii la shaqeynayo fikir iyo tala siinayo waxay u baahan inta ka qaad hadana geersiinayo wasaaradda ay qusayso ee maamul goboleedka Hirshabelle ama dawladda federaalka ay si geersiinayso wasaaraddaas daawooyinka kale waxa soo hadal qaaday sida daawooyinka kale daawooyinka ma jiraan hay'ado daawooyinkaas bixiyo oo beeraleyda ku kaalmeeyo ma jiraan waxaad mawduuc oo macnaha hadda meel loo aado oo hay'adaas bixiso oo la dhahay ma jiraan laakiinse markii ay timaado oo hadba magaaladaas ama meesha ay noqoto saameyn ay ku noqoto in cayayaankaas ku bato ama daawooyinka oo qurxinta beeraha ama caleenta qurxinayso ama cayayaanka ka dilayso markii culayska bato waxa lagu qasbay markaas in ay wasaaradda qusayso oo dawlad goboleedka Hirshabelle in ayada loo sheego oo waxay gelintaas magaalada qaylada markay ka bato ay qaado ayadana wasaaradda federaalka dawladda ay hoos tagto kadib daawo saas ay ku timaado oo markaas dadka ay ku soo gaarto oo markaas dadka la geersiyo waa saameyn markaas ku dhacday caasimadaas ama maamul goboleedkaas inta uu ka kooban yahay beeraleydeedii markaas waa la heli karaa intii ka horeyso ma jirto daawo taagan in macnaha leeyahay beeraleyda lagu saacido la garab istaago shaqadiisa loo qabto ma jirto qof kasta oo beeraley wuxuu ku qasban yahay in uu asaga is dhiirigeliyo oo asaga is garab istaago oo wuxuu sameysanayo sida waa nin dukaan ganacsiga kale oo guriga sarta intuu ijaarto bariiska baawarka as dalbana wax walba iska bixina xamaali iska bixina sidoo kale waa qofkii beeraleyga oo soo garab istaaga wuxuu ku qasban yahay waxaas miro oo dalbaday oo banaankaas la yimid ha u noqdaan mid noqotay faa'iido inuu ka helo ha noqoto mid dhexdhexaad oo noqdo ha noqoto mid uu ku khasaaro waa mid uu qanacsan yahay oo Ilaahayna talada saartay marka waxa leedahay daawada beeraleyda ayaga jeebkooda ka soo iibsado taas waa sax aad waa jaawi beeraleyda ayaa jeebkooda ka iibsadaan waxa ka dhawaajay Saalim inay jiraan iskaashatooyin oo ka dhex abuurmay beeraleyda gobolka iskaashatooyinkaasna sida aan ogsoonahay waa dad isku tagay oo iskaashi marka maadaama qashid waa dad isku tagay oo inay horumariyaan tacabkii gobolkaas ama dalka inay horumariyaan ka samaysan waay marka iskaashatooyinkaas ma la kulanteen oo ma la fariisateen oo ma dhahdeen baahiyaha ay qabtiin oo kale in ay iyagana ay u gudbiyaan maadaama iskaashatadaas ay ku xiran tahay wasaaradda beeraha oo kale macnaha ma u sheegateen baahida ay qabtiino sida inay qabtiino daawadaas oo looga hortago cayayaanka xilliyada fatahaadaha oo kale xilliyada waxa jiro sida anyixi oo kale waa masiibooyinka oo gobolkan ku soo laabtay kamid ahayd ma jirtaa inaa kala hadasheen iskaashatooyinkaas aad waa jirtaa iskaashatadaas waxay u taagantahay mar walba baahida ka jirto dadkaas beeraleyda ah ay ayaga matalaan markii ayagaas cabashada beeraleyda ay soo boodato ayaga ka fadhiistaan oo ka shiraan markii ay ka shiraan kadib ayagana waxay la soo kaashtaan wasaaradda markaas ayagana qusayso ee hadda meesha aan joogno kale oo dawlad goboleedka Hirshabelle ama hay'adaha marka hay'adaha waxa oo sii sokoy ayaga hadii jidkaas ay wasaaradda ka shaqada ka qabsooyis kadib ayaga hadana hay'adii geersiinaa laakiin mar walba taasirka qof kasta oo mara waxay tahay wasaaradda geersiinaa wasaaradda waa inay wax ka qabataa ee hay'adii geersiisa ee cabashada iyo sida loo qeyliyo ama dalabka sidii loo raam daawooyinka ay idin u gudbisaa mar walba oo culayska uu bato ama dadaalka uu bato xiriirkaas waa u jira wayna sameeyaan iskaashatada aad u maasiin dadaalkooda waxaan leeyahay mid hadda wanaagsan waa inay kor u sii qaadaan oo ay waliba beeraleyda waxa jiri jirtay xilliga hore in beeraha dadka loo falo saacado qof kasta ay leedahay loo falo abuurka in qofka la siiyo marka hay'adaha saas oo abuurka bixinaa way jiraan saacadooyin markii lagu falay way jiri jireen wixii marka hadda xogaa waxa malaysa inay gaabteen hadda waxaan leeyahay insha Allah in dadaalkooda meesha shalay ay joogeen inay ka soo gaaban hor u sii socdaan oo ka rajaynayna insha Allah hadda beeraleyda nahay gobolka Shabeelle gaaraan caasimada maamulka Hirshabelle waa tahay maxaa kula talin lahayd marka maadaama xilligii la joogo oo tacabka beeraleyda gobolka Shabeellaha dhexe maxaa kula talin lahayd waa su'aal aad u wanaagsan maxaa yeelay ninkii asoo joogo gurigiisa iyo carmadowgiisa joogo oo beerihiisa diris iliin oo gurigiisa meel hal saac ka jirto ay beertiisa ku taalo ninkii beerta tacba waa waxay ila tahay markaas ninkaas nin oo macnaha aanan rabin waa gobolkan oo ku dhashay iyo caasimadan aan rabin meel kale u jeedo marka hore taas aan leeyahay ninkii beertii hal saac inta u dhaxaysa tacba waa marka labaad waxaan leeyahay ninkii beer gobolka kula iyo midkan kula heeno waxay u badan yihiin dadka mid leh imidaan lahayn midka leh midka lahayn wuxuu helaa beer ijaare midka lahayn beertiisa hoysa ama inay ka badan tahay laga sii ijaarto in tacabka gobolka Shabeellaha dhexe lagu yaqiinay 20 sano 30 sano aan soo marnay Johor ama Jidda ma ahayn in anaga aan shirkadooyin ka shaqeyno ma ahayn in aan wadooyin dhisno ma ahayn in anaga xafiis ama waxba adiga ganacsi aan sameeyno waxay ahayd magaalada Johor ama Jidda waxa ku taagneed waa beeraha iyo dhaqanka oo macnaha hadda xoolaha muhiimada ugu weyn oo la saaran waa labada shay oo gobolkan hadda uu ku leeyahay iyo maamulka gobolka Hirshabelle si fiican
joor ama jiddo markii ay bixayso waa xilligii 80 waay marka xilligaasna waxaan ogsoonahay ama maqaal nagu soo gaaray in bangiga dawladda uu bixinayay daawooyinkii iyo maalgelin oo kaash u bixinayay marka xilligan hadda waxaan leedahay ma jiraano hay'ad naga gacan siiya ma jiraano wasaarad naga gacan siisa ma jiraano annaga iskeen isku maamulno oo haddii ay noqon lahayd daawo haddii ay noqon lahayd cagafcagafti beerta lagu falay qarashaadka galay annaga inteennaba jeebkeena isticmaalno marka soo kala ma duwana marka aad u kala duwan tahay maxaa yeelay markaas waxay ahayd dadka dhan waxa u malaysaa waa dad hal meel u aroori jiray oo dawladdaas ku daba xirnay kuna daba feelsanay maanta waxaa la gaaray horumar kale iyo casri kale iyo nidaam kale oo ilaahayna geersiiyey oo qofkii isagoo yar oo caqli iyo fikir iyo talo wanaagsan la imaanayo jaamacada hadda la dhiganayo inaysan jirin markaas oo zaid aysan jirin oo jaamacada oo dad markaas qaar oo da'itira la ogolay hadda ninka iskoolkii dhameeyo ee dugsi sare uu dhameeyo xilliga jaamacada uu raadinayo waalidiintiisa la raadinayso ama waxa imaanaysa bajada dawladda ay bixinayso ku hirshabel ama ku kala macnaha waxa noqday horumar oo ziyaado ay yimid beerina sidoo kale noqday marka waxay noqotay marka dadkii dad ayaga aan ku xirneen bangi iyo dawlad iyo aan u fariisanayna baan sugayna hadda dadka ay soo gaarin macnaha horumarka ilaahayna geersiya kamid tahay qofku wuxuu qasbanaa marka beertiis wax walba uga baahanta hiil iyo hool inuu faa'iido ka helo inuu qasaare ka helo inuu dhexdhexaad tago qofkii dadaal fikir dheer isku abuuray oo hawsha loo socdaa meeshii dawladda ka kaabi jirtay daawo iyo wax walba booska qof waxay soo joogtaa asoon dawladda u sugayn oo fariisin waxay u keentana waa mahadsantiin lahayo oo heshiiskana ka wata shaqadana ku socotaa wayna qurux badan tahay dadaalka in meesheeda iyo meelka sii dheer aan geynina rajaynayna insha Allah dawladda yiraahdo aan ku dadaal beerleedana ma jirtaa cabsi aad ka qabtaan in webiga fatahaad biyo fatahaad inay idinka imaadaan ma jirtaa cabsi aad ka qabtaan والله ويجي هاد يجرب معناها فتحات أو إنه إسكت صاج أو ويجي أنت إسكت صبح أو باريها لينا أو كليلا أو قاس أو أمر إلهي كوي ما مجرو وحتى معنا بيرلي ذا قار كده معناها لبنا نقول جبيش بيرا وحاجر حريد أو بي وبي إسنجارين أو حريد لي لو بيزوين وجارن ربانو بيرا وحاجر السنة سيدو كلانت أو بريو جاريان أو تعب سارين أو دلق مقالة كله هاي أولو أو أيضا بوجي إنه بي وجي لمرة مباهن أنا ينربين بي وبي أنا ربين كوي مرك على حاجة الروب كحجيس الربي يو كواس وحبان فتاد مرك مالات على سكرافة تعب كي جليدي وتاجن أم غدارة قراء سنتي وتاجن نن حبانا بيرك ولا دير أو حسودينا دت كل كل شيء أيها بفضل إن أي سيد الكود بياس أقلا أيها استدت كم هو معنا بي صبح وأمر الله ويرجين إلى إنه سود بيا إنك أمر إلى يصبح عنه لكن بين آدم كواحد وقعني سكوك كست أولا كتاسا كونه عنك ومصيبة أي قعنه وقعنا كورسنا وفي مرة حاجة قيلنا هنا هذا ويوب عد بير هذا قيلنا يسوي beera Allah ma la taab loo ma socdo wabiga biiso dicale waa baahanay biyasaan ali culuska binaadka sa kasbado waxay marka u baahan tahay in bini'aadanku ay hal ula jeedeystaan waxa laga heli karaa in ay isfahmaan ilaahay u dhawaadaano maamulku markaas jiran xoogaa oo shaqadaas oo ku dardargilay inuu ku garab istaago si fiican taas hadii loo baahan waa tahay zaalim waxa jiro dhalinyaro badan oo gobolka u dhalatay oo wax soo baratay jaamacada ka soo wada qalin jabiyay siibo jaamacada beeraha kale dhalinyaro ka soo qalin jabisa jiro haddana aan aaminsanayn ilaa in xafiis ay tagaan mooyaane aan aaminsanayn in ay shaqo kale oo yar ay qabsan karaan sida in ayaga ay beer tacbadaan oo kale ay dadka ku dhiirigeliyaan aqoonta ay soo barteen ay dadka u gudbiyaan oo kale oo darbiyada fadhiya jiro maxaa aygan kula talaleey taasartu aan leeyahay waa mid qaldan maxaa la ninka wax soo bartay ee waalidiintiisa soo dadaashay ee iskuulka laga soo bixiyay dharkiisa laga soo bixiyay buugtiisa laga soo bixiyay oo wax bartay waxay aad u wanaagsan tahay marka jaamacadii haddana qasab waxay noqotay si iskoolka laga soo barbaarsho kala dan laga soo barbaarsho jaamacadda waxay noqotay marka nin asaga abuur leh oo hal abuur leh oo wax ku shubo dad wax gaarsiin kara laga soo dhigay waxay ku qasban yihiin marka dhalinyarada meesha fuusho in iskaashadaan hadda korti virtual sidaan kale uga hadalnay markaan maanta ku celinayna waxaan leenahay marka in ay iskaashadaan ay sameeyaan 6 jibaal 4 jibaal 5 jibaal ay ku dhigaan qudaar ay iskaashanayaan daawadooda baxsanayaan si ay dadka heerjoor ay u noqdaan indhe in tacabkii uu ku wanaagsan yahay in nidaamkan loo abuuri karo staan loo qurxi karo meeshii 10 jibaalki iimaanaysa ugu yaraan 20 lor in 6 jibaal laga keeni karo aqoonteedana ku jirta ay ku jirta laakiin haddii la fariistaan maqaayadii iyo biibtooyinka la fariistaan taas ma noqonayso horumar waxaan leeyahay waxbarashada soo barateen waxay ku qasban tahay in 6 jibaal laga keeni kara soo barateen ay beeraan ay abuuraan beeraan ay saruusa si iskaashadii oo kale
6 jibaa laga keeni kara 20 loor meeshii ay tar ama 10 jibaa laga keeni 20 loor oo macnaha daawadeedii nidaamkeedii aysan aqoonin dadkan soo bartay ee jaamacadda ka soo baxay aqoonta ay leeyihiin inay dadku u faa'iideeyaan 10 jibaa 20 loor 6 jibaa 20 loor laga keeni kara maskaxdooda ku jirta inay noo faa'iideeyaan leenay berliyeed u faa'iideeyaan ayagana ay tijaabiyaan aqoontii ay soo barteen ay horta ay horumar u noqotay ay horumar u noqotay si fiican taasaan macnaha hadda fikrad ku darsanaa oo horena oo soo sheegnay maanta ugu celinaa insha Allah duulayra waa maasantahay wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii beeraha iyo xoolaha oo aad alaab xiliyadan oo kala ka daawo jirteen TV-ga dawlad goboleedka Hirshabelle Zalim wali waxaan ku dhex jirnaa barnaamijkeeni dalagga yaanyada kale yaanyada waxa jiro in badan dadku waxay ka dhawaajiyeen waxa jiro dad aqoontooda leh hadda magaaladan ku nool jiro oo waxay sheegeen xiliyo badan in magaalada yaanyada saaid ay u soo gasho yaanyadii aan laga faa'iideysanin waxa jiro caalamka waxa jiro sida qudaartaas yaanyada cambaha in la shiido makiinada dib loo geliyo la shiido la baceeyo la gasciyaa jiro waa aragnaa ilaa ay hadda anaga suuqyadeena waxa yaalo yaanyo gasacaysan oo dibadda nooga imaado anagoo heli karno mid fresh oo saaka beerteena ka soo go'day marka ma jirtaa yaanyadaas iyo cambahaas qorshe aan dib ugu habeynayno ama aan ku kaydinayno ma jirtaa la hadda ma jirto taas maxay la wili ma laha maamul goboleedka hadda aan joogno kale Soomaaliya in laga yaabo dawladda federaalka Ibrahim Saad Xamar ka sameeyay meelaha caasimada ay ka sameeyay laga yaabo laakiin waxay u baahan tahay taas in ay dawladdu garab istaagto ama hay'adaha ay garab istaagaan maxaa sababay qudaarta markay magaalada ka badato ay raqiis noqoto halka Xamar loo qaado xilli roobku soo aadaayeen roobkaas oo kala go waxay qasbantaa magaaladii in ay ku fariisato magaalada markay ku fariisato waxay ku qasbaneed in warshadooyin ay lahaato saadu sheegto kale inta oo kaydin ay lahaato yaanyadii oo kayd ku jirto ama shiidan ama la shiidan ama iyadoo frinjeer ku jirto halaabiin ma dhacaysa marka ma hay'ad qofkii ma laha frinjeer warshado yar ma laha shiido la baceeyo ma laha frinjeer hatta lagu kaydo qudaarta sideeda ay ku jiri karto marka meelahaas hadda waxa ka dhiman waxay tahay in ay iskaashatadii oo kale iyo dawladdu inay iskaashadaan dad shacabkana saas loogu dhiirigeliyo maadaama ayaga aysan u fiirin xilligan waxa waaye yaanyada badanaysa iyadoo qaran la dhigi karo yaanya la dhigi karo sisan dhigi kara waxay u badanayaan yaanya in la dhigto sanad hor yaanyada laga faa'iiday maanta yaanyada ma laha marka groupkan yaha tacbaan group ma laha yaanyada hadana toos loo saara markii toos loo saara ciladaas nagu timaada yaanyada magaalada ka badanayso aan keed lahayn waxa marka lagu qasbay in warshadooyin yar la helo keedkaas la geliyo ama talaajooyin yaanyadaas aysan isbedelin midabkeeda aysan halaabin oo badnaan waxa keenay waxay tahay in mareeyada in qofkeeda halaabo oo dadkii magaalada suuqii la saga daadi cambaha yaanyada saytuunka lagu daadi hadii ay warshada lahaayeen ama keed lahaaleed taas horumarkeen mid kale ku sii fiican ahaaleed waxa xilli ka fiican fasalka lagu gaaray noqoleed bay qudaarta inay qaali noqon dibaddan loo qaadin ama xamar loo qaadin noqoleed waa tahay waa inta ku soo gabagabeynayna barnaamijka beeraha iyo xoolaha oo aad alaabo kala xilligan oo kale aad ka daawo jirteen TV-ga dawlad goboleedka Hirshabelle barnaamijka maanta waxa marti igu ahaa Zalim Ahmed Zalim dhanka kaameramanka Liibaan Laki anigoo Astax Nuursanay tan iyo intaynu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo